kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Galsoor waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn kooban oo ku aadan afduubkii baryahan ka socday magaalada Nairobi kii ugu dambeeyay waxa ama sheekadiisu ay taxnayd ee ku aadan Xafsa gabadhii maaragtay la soo badbaadiyay lamaha ammaanka ee dalkan Kenya warar cusub ayaa ka soo kordhay oo ku aadan in dadkii afduubkeeda ka dambeeyay la helay Baashir Umar Ismaaciil ayaa igala qayb qaadanaya Baashir soo dhaw waa maasanta Fuad iyo asxaabta ku taxan Galsoor runtii sheekada Xafsa waa sheeko saameynteeda wadata dabcan gabadha la afduubtay wala soo badbaadiyay hadana waxa leeyahay afduubkeeda waxa ka dambeeyay saaxiibteed iyadoo aad isku yaqaaniin balse Xafsa waxay sheegaysaa in ay yihiin dad aan si fiican isku aqoonin laakiin aan isku dheereen laakiin ay ku eedeynaysa in afduubkaas ayada ay qaybkeeda isla markaana geesay meesha Xafsa lagu afduubtay kaamirooyinka korsoon dabcan waxa lagu arkay gabadha leeyahay afduubka ay ka dambeeyay lamaha amniga ay soo bandhigeen iyadoo indhaha ugu baaqayso ninka yaana oo meesha fadhiyo dadka inta badan wax adroos waxay leeyihiin markii hore ayaba ka shakiyeen familka gabadha Xafsa in ay gabadha kale leeyahay waa la afduubtay ay ka dambeeyay qorshaha afduubka marka mudooyinka dambana aad ay u soo badanayeen dadka ka dambeeya afduubka ama geesanaya dhibaatooyinka magaalada Nairobi maanta waxa la soo bandhigay Baashiyo gabadhii Xafsa ahayd oo sidaad sheegtay aan ahayd maaragtay la sheegayo Xafsana ay ku tuhantay inay tahay gabadhii ka dambeysay in maaragtay afduubkeeda ay qayb ka ahayd qorshihii lagu diyaariyay si lamida ay maaragtay sidaad sheegtay aan ahayn dad saaxiibo isku dhow waxa la qabtay maaragtay nin iyadoo ay saaxiibo yihiin bashakadaas aydan nooga waran meesha laga qabtay deegaanka halkay joogeen Fuad ma san tahay ninkan la qabto waxa la yiraahdaa Jackson Injogo oo runtii waa 24 sano jir gabadha leeyahay afduubka ay ka dambeysana waa 21 sano jir waana gabar Soomaali waa gabar Soomaali ah waxa laga qabtay deegaan la yiraahdo Kinangob gaar ahaan looji la yiraahdo Crystal Views runtii dadku inta badan waxa ay leeyihiin marnaba laga ma filanaynin in ay gabadhaas ka dambeyn karto afduubka gabadha dabcan sida aragtaan daawadayaasha arkayaan waa Xafsa gabadha idin muuqato ninka la qabtana waxa la yiraahdaa sida horeba in kugu sheegnaba Jackson dabcan waad aragtaan inta badan gabdhaha Soomaalida iyo waxaan leeyahay is ilaaliya oo qofka saaxiibka dhiganaysaan inta badan il gaar ah ku eega marka waan soo badanayeen dhacdooyinkan gabar kale waxa jirto oo Bambaaso lagu dilay oo inta la afduubtay la waayay kadibna meedkii ayadoo dhaawac la helay kadibna dhaawac u dhimay marka maalmo ka hor ayay markii lamaha amniga ay soo bandhigayeen ayadoo maxkamad ka soo muuqanaysa gabadhaasi oo loogu shakisan yahay inay ka dambeysay dilka gabadhii Bambaaso lagu dilay Najma Cabdullaahi marka dhacdooyinkan aad ay kan ugu soo badanayeen inta badan dadka Soomaalida halkan ku nool cabsi ay soo food saartay mudooyinkii dambe marka waxa la dhihi karaa waxa loo baahan yahay horta lamaha amnigana waa ku amaanaynaa howsha wanaagsan ee bulshada u hayaan iyo sida ay u soo badbaadiyeen Xafsa Baashiyo ugu dambeyn ilaa ay iminka maaragtay dadka keeskan Xafsa ee afduubkeeda loo qabtay marka laga soo tagay labadan muddo kala jira oo arinta loo hayo maalinkii gabadhan Xafsa la soo badbaadinayay booliska waxay soo bandhigeen hal nin oo markaas tuhmana ah oo leeyahay waxa uu ka dambeeyay afduubka Xafsa maantana waxa soo shaxbacday Jackson iyo gabadha Soomaalida ah leeyahay iyaguna qayb ay ka ahayeen afduubka waliba saaxiibada saaxiibayaal waxaan marka inta uga tageynaa barnaamijkan kooban ama falanqeyntan kooban ku aadanayd afduubka gabadhan Xafsa intiina nagala socota Facebook waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay follow tiraadaan isla markaana aad page-keena Galsoor like garaysan sidoo kale hadii meesha aad naga daawanayso ay tahay YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa si lamida inaad subscribe tiraado isla markaana aad muuqaalkan like garayso oo la wadaagta ama aad share garayso oo la wadaagta asxaabtaada si dad badan oo wanaagsan oo adiga kala ay noogu soo xirmaan tan iyo kulan dambe fi amaan illah ana ku mahadsantiin daawashadiina